Ganacsiga shirkadda Teens diinta Islaamka maxay ka qabtaa? Waa su'aal in badan soo noqotay, hadda waxaan filayaa inaan si buuxda u sharxo la socod wanaagsan. Marka hore, waxaa habboon inaan fahanno. Waa maxay ganacsiga ay Teens ku shaqayso? Sababtoo ah magaca Teens xaaraan ma noqon karo ee ganacsiga ay ku howlgasho ayaa la isku haystaa. 2. Ganacsigan muxuu ganacsiyada caadiga ah kaga duwan yahay? 3. Noocyada iibka tooska, types of direct selling business. 4. Ganacsigan diinta Islaamka maxay ka qabtaa? 5. Waa maxay Teens Company? 6. Qaabkee loogu biiraa ganacsiga Teens? 7. Teens diinta Islaamka maxay ka qabtaa? Jawaabaha. Ganacsigan waxaa la dhahaa iibka tooska ah, direct selling business, waa ganacsi ku salaysan kala libinta wax soo saarka, products, si toos ah, soo saaraha, producer, uu isticmaalaha, consumer, kaga iibinayo dhexeeya, media, laan. Yacni adiga ayaa alaab sameeyey, waxaad rabtaa inaad wax soo saarkaaga aniga iga iibiso ayadoo uusan qof inoo dhexayn, kaas ayaa ah micnaha direct selling business. 2. Ganacsiyada caadiga ah muxuu kaga duwan yahay? Ganacsiyada caadiga ah, traditional business, waa ganacsi ku salaysan kala libinta wax soo saarka ayadoo dhexeeya la adeegsanayo, yacni adiga ayaa alaab sameeyey, alaabtii waxaa kaa iibsanaya ganacsade si jumlad ah, weliba asagana wuxuu geynayaa suuqa weyn ee wax lagu kala qaybiyo, main distributor, sida suuqa Dubai oo kale. Suuqaas waxaa imanaya ganacsade aageed, distributor, ha ka yimaado Soomaaliya, Kenya, South Africa, asaga ayaa waddanka geynaya, asagana dekada ayaaba ganacsato kale ku sugaysa si ay gobollada dalka u kala geeyaan, kuwaasna kuwa degmooyinka kala geeya ayaa ka sii qaadanaya, kuwaas kuwii xaafadaha geyn lahaa, adiga oo ah isticmaalaha, consumer, dukaanka xaafadiina, barmaci, carwada xaafadda ayad ka iibsan. Imise gacan ayuu wax soo saarkan soo maray soo saaraha ilaa isticmaalaha? Ka soo qaad in qofkii koowaad shay walba laga soo siiyey 2 asaga xamaali iyo faa'iido u dulsaar, imise ayuu Dubai ku geynayaa calaa shay? Ka soo qaad inuu 2 keliya saartay. Dabcan adiga wuxuu kuugu imaanayaa 2 eber, 3 eber. Sababtoo ah qof walba xamaali, canshuur iyo faa'iido ayuu ku saaranayaa. Xaqiiqooyinka ka jira suuqa caadiga ah. Qiimo sareeya, hig distribution cost. 2. Tayo liidata, quality problem, sababta tayo laanta keenaysa waa 2 midkood. Qofka ugu horeeya ee product-ga gacanta ku dhigo ayaaba ku fakaraya inuu coobiyeeyo wax soo saarka sida dhacdaba. Mobile copy iyo original. Dhar copy iyo original. Date, waxyaabaha la cuno oo warshadaysan waxay leeyihiin taariikh ay dhacaan, hadday dhacaan waxay ka dhigantaa tayo ma leh, dhibna wuu kaaga iman karaa. Ganacsatada haba u badnaadeen kuwa Afrika maxay sameeyaan hadduu wax soo saarkii qarashka ka galay uu noqdo? Inta Ilaahay ka cabsata marka laga yimaado oo guba ama bada ku shuba, waa ina yar, waxay sameeyaan badankood inay taariikhda noo soo bedelaan kadibna naga iibiyaan, waana sababta ay cudurrada halista ah dalka ugu soo badanayaan iyo guud ahaan Afrika. 3. Advertisement, xayeysiinta suuqan waa mid mediyaha la adeegsanayo sida tifiyada iyo idaacadaha. Uma baahnid inaan kuu sharxo beenta ay sheegaan kuwa lacagta lagu siiyo inay xayeysiiyaan waxyaabahaas coobiga ah ama dhacay oo aysan ayagu isticmaalin, xataa laga yaabee aanay aragba. Hadda waad fahantay traditional business. Direct selling business, haddaad rabto inaad fahanto, waa suuqii caadiga ahaa cagsigiisa, yacni in gacmihii badnaa meesha laga saaro oo ay si toos ah wax u kala gataan 2 qof ee isku baahan oo kala ah soo saaraha iyo isticmaalaha. Wayo waxaa dhibka wada sida copy qiimaha la saaro iyo in wax dhacay dad lagu siro, waa gacmaha u dhexeeya soo saaraha iyo isticmaalaha. Haddii meesha laga saaro dhib ma jirayo. Halkan ayaan ku joojinaynaa xalqadan si aadan ugu caajisin. Fikirkaaga ka dhiibo 2 suuq.